waan idin salaamo dhammaan saaxiibada ku xiran janaalkeena aad ayaan idinkaga mahadcelinaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaalada martan soo dhigo soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago taariikh nololeedka atiishada caanka ah ee Ormila Matonga taasoo ka mid ah hablihii aad loo jeclaa sagaashameeyadii haddaba waxaan eegi doonaa xog iyo xaqiiqooyin u gaara atiishadan sidoo kale waxaan isla eegi doonaa tobankeeda filim ee ugu sheekada wanaagsan oo ay sameysay gabadhani Ormila Matonga balse intaan u gudagalay muuqaalkayga waxaan ka codsanayaa inaad janaalka soo birto subscribe saarto haddii uu muuqaalku cajab geliyo laag inoo saar wixii ayaad qabtana commentka hoos inoogu reeb sii share gareeyo la wadaag asxaabtaada soona dhawaada saaxiibayaal Ormila Matonga waa mid ka mid ah hablihii ugu caansanaa ee soo maray Bollywoodka sidoo kale atiishadan ayaana ka mid ah atiishadii ugu magac dheeraa ee soo maray taariikhda fanka Hindiya inta u dhaxeysay horaantii sagaashameeyadii ilaa dhamaadkii sagaashameeyadii Ormila Matonga waxay dhalatay 4 February sanadii 1974 Ormila markaan eegno waxay ku dhalatay magaalada Mumbai ee gudaha Hindiya iyadoo degan magaaladii ay ku dhalatay ama hadda deganba magaaladii ay ku dhalatay ee Mumbai gabadhan ilaa heerka markaan eegno heerkeeda waxbarasho waxay ka baxday jaamacad lagu magacaabo Pune University oo ku taala magaalada Mumbai sidoo kale gabadhani ayaana ka baratay jaamacadaasi BA in Philosophy ay ka baratay ama ay ku takhasustay Ormila aabaheed waxaa lagu magacaabaa Shivendra Singh waana mid ka mid ah macallimiinta ka dhigay jaamacadaha ama macallimiinta wax ka dhigay jaamacadaha gudaha dalka Hindiya hooyadeed waxaa lagu magacaabaa Rukhsana Suldana iyadana waxay tahay qof iska guri joogto ah oo ma shaqeyso sida shaaca laga qaaday Ormila waxaa la dhalatay laba gabdhood kuwa oo lagu kala magacaabo Mamta Matongar iyo sidoo kale Pooja Matongar sidoo kale waxaa la sheegaa atiishadan Ormila inuu la dhashay hal wiil ka oo asagana lagu magacaabo Kadra Matonga walaalkeed waxaa la leeyahay waxa uu ka shaqeeyaa ama uu ka mid yahay ciidamada dalka India gabadhan ayana fanka Hindiya ku soo birtay iyadoo aad u da'yar ama iyadoo 6 sano jir ah iyadoona ka soo muuqatay filim lagu magacaabo Kalyan ama Kalyug waxaan la daawaday sanadii 1980 laakiin iyadoo atiishad dhameystiran ah ama atiishad buuxda ah waxay ka soo muuqatay ama filimkeedii ugu horeeyay atiishad ay ka noqoto waxaa la daawaday sanadii 1991 waxaan lagu magacaabaa Narazimha markaan eegno atiishadan iyo aktarada ay Bollywood ka taageerto waxay aad u taageertaa aktarka caanka ah ee Amir Khan waana jilaagii filimkii Rangela ay kala soo muuqatay sidoo kale dhanka hablahan waxay aad u taageertaa atiishada caanka ah Rani Mukherjee atiishada Ormila Matonga dhanka fanaaniinta waxay aad u xiiseysaa ama aad u taageertaa fanaaniinta kale ah Lata Mangeshkar iyo sidoo kale Asha Bhosle markaan eegno Ormila iyo sidoo kale nolosheeda qaaska ah waxay xiriir jacayl la soo wadaagtay ama xiriir la sameysay directorka caanka ah Ram Gopal Verma laakiin way isfahmi waayeen oo ay kala hareen ugu dambeyn waxa ay isguursadeen nin lagu magacaabo Muhsin Akhtar Mira oo ah mid ka mid ah ganacsadaha ama ganacsada weeyaan sida shaac laga qaaday waxayna isguursadeen 3 Maarch sanadii 2016 atiishadan hantida ay haysatan waxaa lagu sheegaa 20 milyan oo dollarka Mareykanka waana qiyaas la sameeyay sanadii 2020 markaan eegno atiishadan iyo sidoo kale xaqiiqooyinka laga diiwaan galiyay ilaa dhowr xaqiiq ayaan eegi doonaa xaqiiqada ugu horeysa aan ka eegi doono Ormila waxa weeyaan waxa la leeyahay Ormila waxay ka mid tahay atiishadaha leh balwada ama isticmaala khamriga iyo sidoo kale ama caba khamriga iyo sidoo kale sigaarka saaxiibayaal xaqiiqooyin kale ee laga diiwaan galiyay gabadhan waxaa ka mid ah waxa la leeyahay Ormila ayaana ka shaqeysay iyadoo ama ay ka soo muuqatay iyadoo aad u da'yar aflaam ay ka mid yihiin Kalyug oo la daawaday sanadii 1981 iyo sidoo kale Maasum oo la daawaday sanadii 1983 markaan eegno gabadhani waxa iyaduna ka mid tahay gabdhaha ka wada shaqeeya dhammaan shirkadaha Hindiya ama marka la isku yiraahdo regional industry waa oo ku baxa lahjadaha kala ah Malayalamka Telugu Marathiga Punjabiga iyo Bollywoodka Urduga ah dhammaan shirkadaas ay ka wada shaqeysay ama ay aflaam u soo sameysay gabadhan lagu magacaabo Ormila Matonga xaqiiqooyin kale ee laga diiwaan galiyay waxa la leeyahay Ormila waxay iyaduna ka mid tahay gabdhaha ugu daansiga wanaagsan ama ugu ciyaarta fiican ee Hindiya soo maray taariikhda marka la eego sidoo kale xaqiiqooyin kale gabadhan laga diiwaan galiyay waxa kamid ah iyadoo Ormila waxa la leeyahay waxay 10 sano ka weyn tahay marka la eego ninka hadda u dhaxday ee Muhsin Akhtar Mira sida shaac laga qaaday ama ninka hadda qabo waxay ka weyn tahay 10 sano saaxiibayaal xaqiiqada ugu dambeysay atiishadan idin kala wadaagi doono waxa weeyaan saaxiibayaal Ormila waxay ka mid tahay atiishadaha Bollywoodka soo maray dhanka siyaasadana qayb ka qaata ama siyaasadda ku biiray gabadhan ayaana ka soo mid noqotay xisbi lagu magacaabo Indian National Congress oo markii magaciisa loo soo gaabay loogu yeero INC inta u dhaxaysay 27 Maarch sanadii 2019 ilaa 10 September sanadii 2019 waa isaga baxday xisbigaas kadib waxay ku biirtay xisbi lagu magacaabo Shiv Sena kaas ay ku biirtay 1 December sanadii 2020 waliina way ka tirsan tahay sida shaaca laga qaaday saaxiibayaal markaan waxaan eegi doonaa Ormila Matonga iyo sidoo kale 10keeda filim ee ugu sheekada wanaagsan saaxiibayaal filimka ugu horeeya aan eegi doono 10keeda filim ee ugu sheekada wanaagsan waxa weeyaan filimka lagu magacaabo Rangela
Rangela waxa ay isla sameeyeen jilayaasha kale ah Amir Khan iyo sidoo kale ama ay la sameysay Amir Khan iyo Jackie Sharif waxaan la daawaday sanadii 1995 sidoo kale aflaamta kale ay ka soo muuqatay ama filimka labaad ee aflaamteeda ugu sheekada wanaagsan marka la eego 10 filim ee gabadhan taariikhda laga diiwaan geliyay waxa lagu magacaabaa Binjar waxaan la daawaday sanadii 2003 sidoo kale filimka saddexaad waxa weeyaan filim lagu magacaabo Sadia waxaan la daawaday sanadii 1998 waxayna kala soo muuqatay jilaaga caanka ah Munij Bay ama Doora waxaad u taqaanaba sidoo kale aflaamteeda filimka afraad waxa weeyaan 10 filim ee ugu sheekada wanaagsan kaalinta afraad waxa ku jira filim lagu magacaabo Ik Hadsinaati waxaan la daawaday sanadii 2004 kaalinta shanaad waxa soo galay filim lagu magacaabo Vood oo ah mid kamid ah aflaamta yani cabsida ama horarka ah waxaan la daawaday sanadii 2003 sidoo kale kaalinta lixaad waxa ku jira isla filimka sidoo kale cabsiga ah ee Con oo asigana la daawaday sanadii 1999 markaan eegna saaxiibayaal kaalinta toddobaadna waxa soo galay filim lagu magacaabo Mene Gandhi Koina Hi Mara waxa kula jira filimkaasi ninka lagu magacaabo Anupam Kher waxaana filimkaasi la daawaday sanadii 2005 kaalinta sideedaad waxa soo galay filim lagu magacaabo Gayam oo ay dhankaas iyo Telugu xageeda ay ka sameysay ama koonfurta Hindi ay u aaday ama koonfurta Hindi ay filimkaasi dhankaas ay ka sameysay ama ay u sameysay waxaan la daawaday sanadii 1993 kaalinta sagaalaad waxa soo galay filimka ay Soomaalidu aad ku wada jecel yihiin ee Juday waxayna la sameysay jilayaasha kale ah Sardeefi iyo sidoo kale Anil Kapoor filimkaas waxa la daawaday sanadii 1997 filimka tobanaad ee aflaamteeda markaan eegno 10keeda film ee ugu sheekada wanaagsan kaalinta tobanaad waxa ku jira filimka caanka Indian ka oo ay la sameysay jilaaga caanka Kamal Hassan oo mid kamid ah aflaamta dhankaasi koonfurta Hindiya ay ka sameysay saaxiibayaal gabadhan lagu magacaabo Urmila Matonga markaan eegno laakiin waxa jira aflaam badan ay Soomaalidu aad u yaqaanaan ama ay aad u jecel yihiin marka inay daawadaan kuwa oo ay sameysay Urmila Matonga waxaan ka soo qaadan karnaa ama aflaamtaas aan ka xusi karnaa filimkii caanka ah Daawud ama Deeqi Daawud waxaad u taqaano filimkii qoob suurad ay la sameysay ninkii caanka ah ee Sanjeedud aflaamta kale Soomaalidu aad ku jeceshahay ee gabadhan sameysay waxa kamid ah filimkii Masti oo ay la sameysay ama filimka ku soo canbaxa weeyaan ee wiilka caanka ah Aftaar aflaamta kale ee Soomaalidu aad ka u jecel yihiin ee sameysay gabadhan Urmila waxa kamid ah filimka caanka ah Diiwaangi ka oo ay la sameysay jilaaga caanka ah Ajay Devgan iyo sidoo kale Akshay Khanna ama wiilka masaan waxaad u taqaanaba aflaam kale dhowr ayaa jira uu kamid yahay Jungle film lagu magacaabo oo Fardiqan la sameysay iyo jilaaga caanka ah Sunil Shetty marka saaxiibayaal gabadhan aflaam badan ay ka soo muuqatay Urmila maanta ay u dabaaldegaysaa sanadguurada dhalashadeeda fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka like inoo saar channelka dadka cusub subscribe inoo saar si share gareeyo labada asxaabtaada wixii ay qabto comment hoos inoogu reeb waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena